سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن ونكسن داوضيال قضبضاد ورركنا كما قلدونتان وحاكم ذا مظاهرات وين ربشة سبدلay ayaa magaalada Addis Ababa ee caasimada dalka Ethiopia ka soconaya iyadoo mudaaharaadayaashaasi ay markii hore soo abaabuleen maamulka magaalada Addis Ababa ayuu kadibna mudaaharaadkaasi isu bedelay mid rabshado wata ama bulsho in badan ka dhowr sugaysay inay u helaan jaaris ay dibadbaxyo ay ku cabiraan fikradooda markale jaaris helay iyadoo magaalada Addis Ababa ee caasimada dalka Ethiopia markii jawigeedu isbedelay dhalinyarada qayra ee ku sugan magaalada Addis Ababa ee ka soo jeeda qoomiyadda Oromada ayaa rabshado aad u ballaaran u bedelay mudaaharaadkii gabi ahaanba loo qorsheeyay in lagu cambaareeyo dowladaha reer galbeedka uu hogaaminayo Mareykanka iyadoo sidoo kale mudaaharaadayaashaasi looga soo horjeeday xogaga TPLF ee ka dagaalama waqooyiga Ethiopia ayay markii magaalada Addis Ababa jawi kala yeelatay iyadoo dhalinyaradaasi markii ay bilaabeen rabshado magaalada guud ahaanba galgalay halkaana ay isku ceyrsanayaan ciidamada booliska ama ciidamada magaalada Addis Ababa hay'adaha ammaanka ee federaalka xogaga mudaaharaadayaasha waaweyn dhigaya ee u badan qoomiyadda Oromada iyadoo magaaladu markii jawi kala yeelatay xogaga TPLF ayaa ku dhawaaqay inayna marnana isdhiibi doonin dagaalkana ayna hakini doonin inta uu qof Tigray ka nool yahayna ay dagaalka wadi doonaan iyadoo dagaal aad u culus ay ka soconayaan waqooyiga Ethiopia dagaalada xoogooda ayaa ka soconaya waqooyi galbeed Tigray iyadoo dagaal faraha lagaga gubtay uu dhaxmarayo xogaga TPLF iyo ciidamada huwanta dawladda federaalka dagaalka culayskiisuna uu ka soconayo gudaha gobolka Tigrayga ciidamada militariga Ethiopia oo saacadii la soo dhaafay weerar aad u ballaaran qaaday oo ku qaadeen fariisimo ay lahayn xogaga TPLF ayaa la sheegay inay jab aad u culus kala kulmeen halkaana uu ku dhaxmaray iyo ayaga iyo dagaalyahanada TPLF dagaal faraha lagaga gubtay oo khasaare aad u ba'an geystay dagaalkuna uu wali ka sii soconayo deegaano aad u ballaaran oo ka tirsan gobolka Tigrayga xuduudda deegaanka Axmaarada Canfarta waqooyi galbeed Tigray xuduudda Eritrea ay guud ahaanba ka soconayaan dagaalo aad u culus oo hubka aadka u culus la isu adeegsanayo dowladda Ethiopia ayaa sheegtay in ciidamadooda guulo waaweyn gaadheen sida ugu dhaqsaha badan ay ku gaari doonaan magaalada Mekele ee caasimada gobolka Tigrayga iyadoo dagaalku aad u culus yahay xogaga Tigrayguna ay wadaan abaabulkii abadooga cusla sidoo kale dagaalyahanada OLF ee xoreynta shacabka Oromia ayaa dagaalo culus bilaabay oo ka dhanaa ciidamada dawladda ee ku sugan gobolka Oromia iyadoo guud ahaan gobolka Oromada laga dareemayo dhaqdhaqaaqyada militariga ka soconaya ee u dhaxeeya ciidamada xoreynta shacabka Oromia iyo militariga dalka Ethiopia ay haddana jabhadu soo bandhigaysa muuqaal argagax leh jabka ay gaarsay ciidamada dawladda iyo kuwa maamulka Oromada iyo dagaalada culus ee ka soconaya guud ahaan gobolka Oromia oo guud ahaanba dagaalkaasi uu ku sii fidayo deegaanada gobolka Oromada jamhaduna ay wada dhaqdhaqaaqyadii abid ugu ballaarnaa iyadoo jamhadu sidoo kale gobolka Oromia ay ka qoranayso dagaalyahano aad u tiro badan oo ku biiraya ciidamada xoreynta shacabka Oromia militariga dalka Soomaaliya ayaa wali sii wada howlgallada u ballaaran ee lagu doonayo xogaga argagixisada in guud ahaanba lagaga saaro dalweynaha Soomaaliya iyadoo koonfurta Soomaaliya ay ka soconayaan abaabuladii abid ugu cusub ee xogaga argagixisada guud ahaanba xididada loogu siibayo dawladda Soomaaliya ayaa wada isku dubaridka ciidamada isku dhafta waa ciidanka militariga ciidamada macawisleyda ee deegaanada sida mutadawacnimada iskaga qoraya si ay ugu biiraan dagaalka lagu doonayo dalka Soomaaliya in guud ahaanba argagixisada lagaga sifeeyo iyadoo dagaalku marba marka ka dambaysa uu ku sifidayo deegaano horle qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaan warkeena ku eegaynaa taariikhdu waxay ku beegan tahay 22 bisha 10
2022 haddaynu gudagalno wararkeeni oo faahfaahsan magaalada Addis Ababa caasimada dalka Ethiopia ee markali ah jawigeedu isbedelay mudaharaadyo aad u waaweyn oo rabshadahooda wadada ay ka qarxeen dowladda Ethiopia ayaa ku dhawaaqday inay mudaharaadyo waaweyn la qabanayo oo looga soo horjeedo dalalka uu Mareykanku hogaaminayo ee dowladda Ethiopia ku sheegtay inay faragelin cad ku hayaan madax banaanida dalka Ethiopia iyagoo ku soo gabanaya baliira colaadda ka taagan waqooyiga Ethiopia hase yeeshee mudaharaadayaashan oo dowladdu u qorshaysay inay noqdaan kuwa lagu cambaareeyo dalalka reer galbeedka ayaa markali ah jawigoodu isbedelay iyadoo dhalinyarada qeyr loo yaqaan ay ka soo jeeda qoomiyadda Oromada ay mudaharaadayaasha markali u yeelan jawi kale ayna ka leexiyaan wadadii loogu talagalay magaalada Addis Ababa markali xaaladeedu ay isbedeshay iyadoo hay'adaha ammaanka iyo dhalinyarada mudaharaadyo waaweyn dhigaya ay faraha sula tageen xaaladuna markali ay cuslaatay dowladda Ethiopia ayaa sheegtay in faragelin cad laga wado gudaha Ethiopia dalalka ay hogaaminayaan midowga Yurub ay wadaan hawlgallo aad u ballaaran oo ku doonayaan gabi ahaanba dowladda Dr. Abiy Ahmed ay saaxada ku dhaafiyaan sidoo kale dagaalada ayaa si cuslaanaya ka soconaya gobolka Tigrayga iyadoo ciidamada TPLF ay ku dhawaaqeen dagaalka inayna marnana hakin doonin isna dhiibi doonin ciidamadooduna ay dagaalka sii wadi doonaan inta uu qof Tigray ka nool yahay ayadoo dagaalada xawliga ay ka soconayaan waqooyi galbeed Tigray xuduudda deegaanka Axmarada Anfarta xuduudda Eritrea Tigray dagaalkuna uu aad u culus yahay hubka aadka u culusna ay soo adeegsanayaan xogaga dagaalada xooggan ay dhaxmarayaan ee ku dagaalamaya gobolka Tigray dagaalyahanada oo weelala xoreynta shacabka Oromiya ayaa sheegay inay dagaalyahanadooda weeraro xooggan qaadeen oo ku burburiyeen fariisimo aad u waaweyn walaha militariga dalka Ethiopia oo ku yaala gobolka Oromiya deegaanada Walega halkaas ay ka dhacayaan dagaalo aad u culus oo u dheeya dagaalyahanada ciidamada dawladda iyo xogaga gaarka Oromiya oo iskaabaya ciidamada oo weelala taageero aad u ballaaran keenaya dhalinyarada gobolka Oromada ayaa bilowday weeraro xooggan oo ka dhana ciidanka dawladda iyo maamulka deegaanka Oromada ee dawladda taabacsan ayada dagaalka gobolka Oromiya uu marba marka ka dambeeyay si cuslaanayo deegaanna horlana uu ku sifaafayo qodobareedkan ugu dambeeyay militariga dalka Soomaaliya ayaa hawlgallo qorshaysan ku dilay saraakiil aad u tiro badan oo ka tirsan xogaga argagixisada ee ka dhaqaaqa koonfurta Soomaaliya dagaal aad u culus oo iska kaabayaan ciidamada militariga Soomaaliya dhalinyarada mutadawiciinta ee macawisleyda ayaa gulihii abid ugu ballaarnaa ka gaaray dagaalada ay kula jiraan argagixisada iyadoo deegaanadii abid ugu ballaarnaa laga xoreeyay xogaga argagixisada dagaalkuna uu ku sifaafayo deegaan aad u tiro badan oo ka tirsan koonfurta dalka Soomaaliya tani kulanti dambe wacan salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh